komishanka xakamaynta HIV/AIDS ayaa xarunta ciidamada dibdemiska Soomaaliland ka bilaabay barnaamij wacyigelin ah oo ku saabsan HIV/AIDS markii ay xubnahani ka socda komishanka xakamaynta HIV/AIDS ay gaadheen halkaasi waxa ku soo dhaweeyay taliyaha ciidamada dibdemiska Soomaaliland Mudane Axmed Sawaaxili iyo xubno kamid ah ciidamada dibdemiska Soomaaliland ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidamada dibdemiska Soomaaliland Axmed Sawaaxili waxa hadaladiisii kamid ahaa waxa aan ku soo dhaweynaynaa xarunta ciidanka dibdemiska qaranka komishanka xakamaynta AIDS-ka oo naga siin doona wacyigelin iyo tusaaleba waxaan idin ballan qaadaynaa inaanu waaradana waana qaadano ku dhaqanno dadka kalena u gudbino marka aad iyo aad baa mahadsantiin. dhinaca kale waxaa halkaasi ka hadlay madaxa wacyigelinta komishanka xakamaynta HIV/AIDS Cabdisalaan Odanwaa ku-xigeenka madaxa wacyigelinta Hilaal Maxamed kusimaha agaasimaha waaxda wacyigelinta iyo abaabulka ee komishanka xakamaynta HIV/AIDS Saciid Muuse waxaanay ka warbixiyeen barnaamijkan wacyigelineed ee ay wadaan ciidankan xabadiisan heega ku wada yihiin ee san wada joogaan wadada walaalaa wada saaxiibaa wada meel wada jooga wax ku cunaya waxa laga yaabaa midkiin ciidiis ka gur ciidigurska wax ka guro amba dimgaraasa baashan de makimadan wax lagu xirto kale rayslaan noqoto amba baashan mishiin kale isticmaal noqoto inaad kiimo ganaha warahay waxa loo kala qaadaa ka dib isticmaalka kale xibad taxadiiraadka loo baahan yahay waxa kamid ah yani qalabka wasakhoobay oo qof qaba aad ka dib isticmaalkan ka taxadiirtaan si adigu la faago badalso bulshada kale looga badalno waxa lagu kala qaadaa afar qaybood aad u waaweyn afarta qaybood oo kala ah galmada ama xalaal ha noqoto ama xaraan ha noqoto iyo qofkii hooyada xilliga bris feedinka sameeynaysa hooyadu naas nuujinayso xilliga hooyada laftirkeedu uurka leedahay ilmaheeda way gudbin kartaa iyo xilliga umulayso waxa kale lagu kala qaadi karaa sheefka iyo waxyaabahan iyo maqaska iyo cidiya gurta iyo sakiinta iyo waxyaabaha soo dhan oo lagu kala qaadi karaa waxa lagu kala qaadi karaa iyadoo lagu shubo dhiig aan caafimaadkiisa la hubin marka ujeedadaan idinku nimiyay waxa weeyaan xog idin ka siina bal HIV-ga kulay ciidan badan baa markay boardka arkeen yaranaxayo HIV bay diimi maanta isiri marka inaad ka sastaan ma ahay waa inaad horta HIV wuxuu yahay aad ogaataan marka insha Allah afar qodob baan idin kala hadli doonaa maanta HIV-gu muxuu yahay sidee loo kala qaadaa iyo si looga hortagi karaa iyo kaalinta ciidanku ay ka qaadan karaan HIV-ga marka waxa jira dad badan oo HIV-ga haysta inuu cadhaa la yahay HIV-gu marka maanta insha Allah waxaan idin ka shaafi doonaa HIV-gu intiina aan ogeyn in aanu HIV-gu cadhaa laan wahayn xaraan oo kaliya laguma kala qaado waxaan idinku dhiirigelin inaad dhalinyar baad u badan tihiin labada qof ee doonayeen inay isguursadaan inay isbaaraan waayo dad badan waxa dhacay si xalaal inta isku guursadeen mid kamid ah xanuunkii qabay oo uu qariyay ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay Dr. Guuleed oo kamid ah dhakhaatiirta dalka waxaanu faahfaahin ka bixiyay xanuunkan HIV/AIDS xanuunka HIV/AIDS-ku ee fayraska uu keeno HIV-gu waxa uu weeraraa unugyada difaaca ee jirka oo ah unugyadii qofka u qaabilsanaa difaaca wax kasta oo dibadda kaga yimaado xanuunku sababi kara la dagaalamay xanuunkuna markaa dhibaatada ugu weyn ee uu dadka gaarsiinaya waxa weyn inuu difaacooda jirka daciifiyo marxalada dhowr ah buu maray kala duwan aakhirka wuxuu gaaraa marxalad ah inuu xanuunku difaaca jirka ee qofka uu dhamaantiiba gacanta ku dhigo oo burburiyo jirka bini'aadamkuna aanu qofka uu xanuunkaasi ku dhacay aan waxba iska difaaci karin